انت بيسقى كودا مسؤولها انت يا رسول الله ندبك كودا شبانيني كي ماشي قالوا تاريبين والله قلنا يا بل نجي وحلا وحن قطعنا وان الله يا ادم الدعاء الى تعالى وان ذي سو دعين ilmaha meesha iga saar qoyska xaafadan wax farxadii kama jirto maxaa yeelay waxa ka taariibay wiilkii curadkii xaafada oo 16 sano jir ahaa muxubada iyo galgacaylka waalidku ay wiilkooda u qabeen waxa kaga daran $12,000 Mareykanka ah oo magafaha Liibiyaanka ah oo ka raba wiilkooda taariibay hadii kale la kulmayo xaalad nolol la'aaneed hooyada caruurta iyo ayada wiilkan taariibay waxa la soo daristay walaac xoogan iyo moral jab waan magacaygu waa Cabdilaahi Ibrahim Xasan waxaan joogaa magaalada Gabiley ma aanan weligay maan duubin waxba wax media askamaan duubin wali waxa uu shaqada tahay nin wastaada oo dadkan guryaha dhisabanahay qoyskaygu waa tiradoodii waa 9 caruura anigoo aabihii xaaskaygii 11 iyo aabahay iyo hooyaday qoys 14 ka kooban baan nahay waayay sidaan wastaadkaasi waxaan kaga shaqeeyaa maalintii $15 ayaa maalintii marka guriga soo dhiso 4 habeenimo baxo 4 galabnimo ayaan $15 lacag u dhiganta ka soo helaa waa cuntadoodii iyo noloshoodii oo kaliya intaasaan alxamdulillah ban hadana ku nooleen imika si dhib ka weyn oo tan maanta aanan weliga wax iska duubin maan iska duubaya waxa weeyi inankii igu weynaayay Khalid Abdullaahi waan markaliyo u weynay oo daadiisu waa 16 jir ka u yarna waa 6 bilood 9 ka caruurta waaya waxba la igala soo hadlay meel xaq Liibiya iyo xagaasa oo dad cadow ku haystaan 12,000 US ka bay yiraahdeen bal xaaladda qiyaas waxaan ku noolnahay inteedaasi qoys anoo hooyo qoyskii hooyadii aabahay iyo anigoo 11 inta wastaadka anayba cuntada yar deewa noogu filayda 3 waqti 12,000 US markay keen yiraahdeen ilmahaagii noloshaadii baa ku xidhan horta 2 bilood baa imika wax laga joogaa waqtiga 2 bilood bishii hore de waaban suuxsanayno ama kaag baan horta ku jirno meel aan dhaqaaqniyo dhinac la dhinac dhaqaaqno waan garoweyn adu alxaasil ilaa maanta watana soo gaadho waxay maraysaa 2 bilood iyo 10 cisho waxaan ka codsanayaa walaalahayga islaameed waxa kale walaal ka codsanayaa walaalahayga islaameed oo dhammaan ummadda islaameed waxaan ka codsanayaa inay aabbo inta soo caruuro leh duruufta ku nool la yiri maanta keen 12,000 oo US iyo ummadda islaameed waxaan ka codsanayaa ka doonayaa inay iga caawiyaan dar ilaahay iga caawiyaan Cabdilaahi Ibrahim Xasan waa aabaha dhalay 9 caruur ah oo wiilka taariibay ugu weynaa wuxuuna gacanta ku hayaa hooyadii iyo aabihii oo aan ehel kala lahayn waxa waroor kasta uu ka caashaqada dhismaha si ugu dabaro nolosha qoyska iyo tawaalidkiisaba waxaan ku walaal waxaan hayno hooyadiina ka dhashay hooyo ilmaheedu ka maqayna dhibaatadeeda waad garanaysaan ummadda Soomaaliyeed meel wala joogaan waxaan ka codsanayaa inay dar ilaahay igu caawiyaan ayaan ka codsanayaa waxaan hayno hooyo ilmaheedu ka maqayna oo dhibaataysan adduunna ma lihi walaal awlaadaasan hayaa waxaan ku qof dhibaataysan cidna ma aha habeenkiina walaal ma seexdo maalin ma seexdo hooyada iska balmo la salka cilada iska degan baanahay adduunyo melihin waxaan umada Soomaaliyeed walaal ka codsanayaa inaad meel kasta oo joogaanba ilaahay dartii nagu caawiyaan oo ilmahaasi meeshaasi iga saaraan baan ka codsanayaa umada Soomaaliyeed hadda wuu warwarsan yahay aabahani maxaa yeelay ma haysto garab iyo gaashaan wuxuuna ka soo jeedaa qoys sabool ah oo isagu uu dhaqdhaqaaqi jiray arqalada ugu weyn ee had iyo habeen uu aabahani ka seexan leeyahay waa $12,000 ee magafaha Liibiyaanka ahi uu wiilkiisa ka doonayo hadii kalena waxa uu sheegay inuu xaalad adag wiilkiisu la kulmi doono arintaasi ayaa mar qura bedeshay nolosha xaafadan anigu waxaan hay islaantii reerka dhashay ayayda baan ahay inanka yar meesha ku jira laga haysto ayaydood baan ahay adduunna mari itaala mari ma shaqayn karayo ma kici karayo wax la waxaan u qaban karayaa ma jiro walaad ummadina Soomaaliyeed oo anigu ducay ilaahay taala ilmaha yar meesha iga saaro na soo caawiya ummadda ilaahay eelka joogto dhanayna soo caawiya anagu cidnaba ma nihin ilmi yar balkaas nagaga jira $12,000 keena baa la nigi ka wastaadka ordayay kaasan hooyanahay aniga adagiiba ag joognaa intaba isaga ka wada mas'uulaha
intaa iyadoo soo helaanu dabka ku wada shubanayni kii meesha iga galay iga taariibayna waa la qalanayaa balna yidhi waxaan ku kacna waan la ducayla taale waan idiin soo ducaynay ilmaha meesha iga saar waxaan way idinka codsanayaa inaad soo caawisaan way soo caawiyo oo ilmaha halka iga saar la iga qalanayo taalo uma haya duulna marihin hooye dhammaan dadka muxsiniinta ah ee jecel inay sadaqada la baxaan waxaa laga codsanayaa inay caawiyaan qoyskan danyarta ah ee wiilkoodii Liibiya ku xidhxidhan yahay walaal fadlan ka qayb qaado oo wixii aad awooddo ku caawi qoyskan wiilku ka tahriibay adiga oo ugu diraya kalena xidhiidhaya lambarada shaashada ku qoran